قالوا السماء جرو سلكونا ورورسي عيان سبق ولا رشو أبكيو مسؤولي كرو سماذا علنكا كلنا عيا سكتاي فري أتكي سو سامر الهو بلا زونكا إباري isu soo noqod wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ee nagu xidhan meel kasta adduunka daafihiisa ka joogtaan iyo waqti kasta oo ay idin tahayba wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo muuqaal xiiso badan waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo fiidiyoyada ama muuqaalada ay leedahay Fihima ee lagu soo arkay websaytada ma jeceshahay inaad ogaato fiidiyoyadaas websaytada ku jira waxa ay yihiin mase jeceshahay inaad ka gungaadho oo arrintan xaqiiqadeeda aad ogaato anigu waxaan kuu sheegayaa maanta wixii ilaahay igu og yahay oo igu wallaahiya waan dhaartay ee aan websaytada ku soo arkay xalay haddii se arrintaad doonaysa inaad ogaato waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka dhammaystirato adigoo aan dhammaysan fadlan komentigaaga iyo faalladaada ha soo qorin mahadsanin قالوا السماء جرو سلكونا ورورسي عيان سبق ولا رشو أبكيو مسؤولي كرو سماذا علنكا كلنا عيا سكتاي فري أتكي سو سامر الهو بلا زونكا إباري balse intaanan gudagelin muuqaalada iyo fiidiyoyada aan websaytada ku soo arkay oo aan arrintaa inii iftiimin waxaan doonayaa inaan inii sheego ama aan idin tuso arrin aad u qosol badan oo weliba aad ka heli doontaan nin dhalinyaro ah oo ku nool waddankan Sweden ayaa waxa uu daawaday fiidiyowgan habeennada ka mid ah المهم ها هذا يقول ما ديك يدون تابو ويلا ديدون تابو بكر اسمه كيد يا قول ما ديك قول ما دعسه قول ما دعسه طب انت انا كادي ما كاتي انا حري يقول لك حري لا ماشي ايش تغرن لا ايش تغرن مش كده حظ ما ان شاء الله يبارك لكن ما كان في اللي نسواش وقته وكل يسوي لي سلاك لو عارف اول waxaan rabaa oo jiraan oo walaal لكن والله سؤالك في اللي ما خطب ويفضل sida aragtaan fiidiyogaas waxa ku wada jira ama iska dubayba waa Isha Casiis iyo aabaheed iyo walaalkeed waana Isha Casiis oo aabaheed ka codsanayo inay u keento nin guursada si uu noqdo awow oo carruurta awowga u yahay uu u arko intaanu gooriyoon ama xaqiiba ku soo degdegin muuqaalkan aadka u xisaab badan leh ee bari dhexdaasa qabsada baraha bulshadu ay ku kulanto ayaa haddaba nin dhalinyaro ah uu daawaday ama uu ka soo horbaxayba markii uu daawadayna muuqaalkan aad ayuu uga maqsuuday aabbahan ku dhiirigelinaya inantiisa inay nin u keento ayuu aad ula jeclaaday ama ka helayba markii muuqaalkaa uu daawaday maxaa dhacay habeenkii ayuu seexday waxaanu ku riyooday riyo la yaab badan oo talo riyadaas maxay tahay alay ala dhagax man madaxa uga galiyay de waxaan ahay nin ku rababanay ahlan wa sahlan de ka waran intay ugu qosayba tiri de dadayga musiyo oo dadkayga u tag shodheeda ag fadhiya u tagay intii ugu qosli oo sheekada kala meeraysa intaan kamaradaydii qaatay ban gurigii faamigooga ugu tagay ha dhacday in albaabkii aan garaacay marka odayga abidayga furaya adeer iska warna fiicanta khayr alxamdulillah saa wuxuu iska soo jiray adeero maxaan ka caawiyaa waxaan adeero gabadhaada rabaa si wanaagsan markaa kugu midad wax rabaa inaan gabadhaada aroos wariyad baa aroos noqon sheekadan ka hor dhici maayo ka soo daawo YouTube-ka linkiga xaqiisa hoose ku soo dhigi doono waa Farxaan Official waxaan hubay inaad ka heli doonteen markaad booqato YouTube-kana subscribe soo saar una share garee mahadsanid قالوا السماء جرو سلكونا ورورسي عيان سبق ولا رشو أبكيو مسؤولي كرو سماذا علنكا كلنا
ayaasan ka taagi fareen adkay soo samir lahaw haddaba aan ku bilaabee bulshada Soomaaliyeed marka la eego runta iyo beenta ayay aad u jecel yihiin waxa laga yaabaa haddaan maanta been kuu sheego markiiba inaad aaminto oo aad qaadato like iyo comment-idana aad igu caawiso laakiinse haddaan run kuu sheego waxa laga yaabaa inaad iga cagajiddo oo markaa aad beenlow igu sheegto waayo Soomaalidu waxay yidhaa hore loo yidhi runta iyo beenta ayaa dheeraysaa haddaba waxaan doonayaa inaan ka hadlo fiidiyoyada ama muuqaallada lagu soo arkay websaytada ee ku jira xalayto ayaa waxaan daawaday dad aan ixtiraam badan u hayo oo weliba yuutubaradooda aan ku xidhanahay muuqaallo ay daadihinayaan oo weliba hadal beenana ma yaqaanaan iyagu sidaan anigu ku ogahay weeyaan markii aan muuqaalladooda daawaday ee aan arkay iyagoo leh waxaan ku soo aragnay fiidiyoyadaas muuqaalloodaas websayte halkan ah oo weliba waa ay ka dayrinayaan markiiba waxaan isweydiiyey tolo muuqaalladaas maxay yihiin markaan muuqaalladaa raadinayey ujeedkan u raadinayey aniga igama ahayn inaan xumaan iyo fawaaxish soo daawado laakiinse Soomaalidu hore ayay igu maahmaahday dhegahaagu waxay maqlaan waa been laakiinse indhahaagu waxay arkaan ayaa runa had iyo jeerna dadku waxay aaminaan oo xaqiiqada u arkaan wixii indhahooda u muuqdee sidaa darteed anigoo arrimaha ka duulaya ayaan muuqaallada baadhay facebooka ayaan marka hore websaytada galay waxba waan arki waayey kabacdina haddana waxaan galay qaybta googlaha waan baadhay dhowr websayt ayaan galay dhowrkaa websayt markii aan galay guntii iyo gebagabadii waxaan arkay muuqaalladii weliba 2 muuqaal ayaan arkay mid markii aan arkay kii ugu horreeyey markii aan arkay shaki ayaa igala waxaan samala kala sheegay kan maahee bal mid kale raadi kii kalena waan arkay haddana nin kale youtubera waxaan arkay websaytada laftigeedii uu muuqaallada ku soo arkay sheegaya websaytadaana waan galay markii aan galayna isla muuqaalladan ayaan ugu tegey laftigooda haddaba hadalka bayaan igu daalinine waxaan meeshaa ku soo arkay markaan hadalka inii soo koobo muuqaal la mid ah dhowaan muuqaal laga baahiyey ninka lagu magacaabo DJ Subeer dhowaan ayay ahayd markii laga baahiyey muuqaal lagu sameeyey editing oo baraha bulshada qabsaday oo DJ Subeer lagu eedeynayay isagoo fawaaxish samaynaya oo laftigiisuna uu ka hadlay muuqaalkaas DJ Subeer qofkii soo arkay iyo muuqaalkan website-ka la soo geliyey waa uu fahmaya inaan waxba kala duwanayn oo isku sii loo edit gareeyey aaninii balballaadhiyo si aad u fahantaan fiihima waa xaqiiqo muuqaal yar oo ay leedahay in baraha bulshada uu wareegayo waa muuqaal madaxeedu qaawan yahay oo ay xidhan tahay maryihii hurdada ee guriga lagu joogi jiray oo weliba ay iska duba soo hadlayso oo ay leedahay macaan iminka ayaan shaqadii ka imi muuqaalkaas cid walba waa ay daawatay muuqaalkaa yar inta la soo qaatay ayaa waxaa xagga dambe lagaga dhejiyey muuqaal kale oo gabadh kaloo Afrikaan ah oo madow ama diirka Soomaali uga soo eeg oo wajigeeda la qariyey waana qaawata waxay xidhan tahay nigis iyo keeshale khaliya ayay xidhan tahay xagga dambe ayaa lagaga dhejiyey fiihima marka hore way hadlaysaa waxay leedahay xabiibi iminka ayaan shaqadii ka imi markii hadalkeeda dhamaysatee muuqaalka inta wajiga ee madaxeedu kaliya uu qaawan yahay ay dhamaysana waxa lagu dabanabay muuqaalka kale wajiga la qariyey ee gabadha madow ay ku jirto ee qaawan tahay weliba gabadha madow ma hadlaysee waa sanqadhla marka aniga waxa ii soo baxday markii aan muuqaallada baadhay labadaa muuqaal uun baan arkay ee la isku dhadhabay iyadu siday sheegaysa fiihima muuqaalladii wax waa laga gudbiyey laakiinse muuqaallada ay sheegaysa laga gudbiyey waa kan madaxu qaawan yahay uun muuqaal kalo qaawan oo jiraa ma jira oo maryaha ay dhigatay waxaana wacan in runta laga hadlo oo xaqiiqada lagu rafto waxaa fahmi karaa in labada muuqaal la isku adhidgareeyey qof fiidiyoyada garanaya ama fahmaya in adhidkeeda ayuunbaa fahmaya anigu waan gartay inay waxay yihiinba adiguna waad soo arki kartaa waan jeclaan lahaa inaan websaytadaas xalkan ku soo bandhigo laakiinse hal cillad baanaan ugu soo bandhigayn
dadka wanaagsan inay ogaadaan waan jeclaan lahaa waa iyagu markay website-kaa galaan way ribood garaynayaan laakiinse dadka xuni ma ribood garanayaana muuqaalka ayay la soo degayaan baraha bulshadaanay ku baahinayaan waa intaan uga cararaya halkaanoona soo dhigay mid kalena aan kugu daree websaydyada la sheegaya caddaan ma laha waa websaydyo soomaali baa ku qoran soomaali ayaa ku qoran waxaana ii soo baxday in qof soomaaliya meeshaa geliyey khadar muu gelin in dadka la hafrana ma wanaagsanaa muuqaalladan waa laga dhex qaaday waa muuqaalka la isku adhidgeliyey halkaasaa lagu tuuray waa sidai aniga ila tahaye ilaahay ayaana igu og mana jecli inaan been faafiyo oo dadka waxaan jirin u soo bandhigee adiga siday kula tahayna komentiga igu dhaaf muuqaalkan markuu soo galana sii sheergaree insha allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu noqon doono kii ugu dambeeyey ee aan kaga hadli doono fahiime iyo khadar iyo waxyaabaha laga baahinayaba adigana aragtidaada waa muhiime wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu gaalol samada jiro salkuna warorsayay ayaan saba kula dhasho abkaygu masuuli karo samada calanka kula dhan ayaa sakata